وحلا يدحل بح أركيس هاي مقدلته وايو تدقى علمي بدن إيقا قوم بدن إيقا وايا أركسن أيا وجهد إذا فرديا مركا أف سومالي يقولون واه محالي هذا نن حافظها يجي بابا لقطة كبوبيو تيو بيدو سالي ورمحاكو هلي سوري تشيلي بكاي وريري أف سومالي يقول هدو وريرو ويدون يقرأ اللي عندهم تان أنت سوا كفتن موضوع علي دبيرنتي وحيويرو كوبن بانكسو دياري وانا سي كوبي دونا هذا هو وقته مدشانية 8 دقيقة كسو كوبا يا رسكو دي دونا ومدينة هرومر قادو dhalinyartu doorka ay ku leedahay maxaa caqabada dhalinyarta hor taagan dhalinyarta qura maaha ee bulshada oo dhanba maxay inoo wada hor taagan inay ummadi hana qaado amba ay horumar gaadho mawduuca ah buu ahaa mawduuca lady bay da'yar amba use age waxay yiraahdeen gaaladu adigu 14 ilaa 15 ilaa 35 da'da inta u dhaxaysa iyay dhalinyar iyagu yaqaanaan laakiin waxa بروفيسور كنا وكذا واجي إن ير أو سوماليات تيجي نودت كديرنا هاي أو شنشيرة أو أفر بقول أو نفو أري الرعدي أو أنت ساو إكتتر هذا نيشي نهب لا يمغى نعم تيجي دت كينا إنه حقير إنه نودت ككل يدنا إنه من سنة هاي أن تهرمرين تأوبان هنواتا dadka waaweyn waa iska daayay buu yiri professorku dhalinyarta in focus ka la saaro dhalaanka in focus ka la saaro la rabay waa ka saddex waxa la yiri ummadii caanaha goorma gadhoor la caanaha goorma subag laga helaa marka ay xasilaan ee ay gadhooraan ummadina goormay horumar gaadha marka ay xasisho iyo la isu geysan karaa maal iyo muruq iyo maskax la isu geysan karaa هذا بقى صدق داينا اللي يسوقينين عقباتها أمة الصوماليات هرتاجني محيين سؤال شيء سويدين تلواتها كو عقباتها هرمرك هرتاجن وحوي أمة الصوماليات وح كوشرة ويفي عنتها هاي أمة الصوماليات ويناكسنتها هاي تنايتها هاي لكن practically مركا عينو يستينو لا ليالو رون عينو يسو شيغني لبن نباشورة ولا دسودسي كل فيسبوك هذا كله بتم بيدون قليني لبن نباشورة لو دسي نين دلا يا نين نقباشورة لو دسي كأنها قبايوح وكل يحصدين إن دولهم ميلونا أركين رادي نق لكن واو قرية وحيد وريا ورباكرة سيد محاجرة سيد ورسان كيجو هايو إيه كعنت يدولابا waxaan ka wadaa Soomaali way fiican tahayna waa leeyahay subax walbana waxa la sheegay waraan dhagaygu ku farx nacam intermis in qowl ahaan iyo ficil ahaan inaynu is ahaano horta way ka dardaaran ta aan rabo taynu ku dhaqanay inay taa noqoto ta kale waxa jira nacayb iyo godob aanad adigu gelin oo cid kala gashay 700 sano ka hor odaye waxay isweydaarsadeen amba gacan dad ku kala dhexdhacday cid maanta joogtay inay u dhimato nimba waxa la yiri nin amiin la yiraahdo islaayeen amiin oo ka dhex guuxaya oo amiin cuqdadiisii ku jirto ayuu masaajidka galay waa la tukaday markii salaada laga baxay buu sheekhi ducadii bilaabay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تي مساجد كلا يدوب يسوق محو حسوستي آمين سيري هو يدين وحاكو سمعي وكبح وايس فاني سمها أمد الصومالية وحان دون يين أن هل كان يدين كلا دردار مودلين يروي ولا ليالو آمين كيد سلايسين إيا آمين تمساجد كو هاي نوكلا صوعن هذا واكلا لبا waxa ay inaga danteenu ku jirno walaal hal qodob hadaynu isku diidno 9 adna koodana anna iidana yaynaan iska raacin waa isfaaniisoma
marka gudaheenu it have to be clean ta kale cidda waxa la yiraahdaa leaders ma hogaamintu waa role wuxuu nin kastaba wax laga tuugi jiray tu uu yaqaanayo tusmuu uunku kala leeyahay ee teenana siman nimba waxa la yiraahdaa tooyo heerku ka gaadhay xarigan kaba tolo aha kabaha xariga lagu tolo ayuu nudxada waa saddex nud xarigu saddex nud weey oo isku soo han saddexdu mid xada nacam xatooye nin xarig ka baxsan waay ayaa la yiri waxa tahay madaxa maxkamadda iyo cadaaladda iyo garsoorka erga u yiri xajaadan afqallo Allah una xariistay 1963 gabaygu tiriyay ee la yiraahdo tabaalaha adduun waxa ku jirta kaba tole maxkamad loo tirshay isagoo tolanka uun jeexa barbuu xabada xariga hadduu buuga teelteel u dhiga taasiyaa male ee in kastaba istiilo waxa taag u hidin weedo ninka kaaga togan uga tagbaantani awoodayn halka hebel walaalkay baa iga mudan tolkay habaar baa kaga dhacday guulna kuma gaadhaysid ilaa inta aynu qofkii saxda ahaa halkii saxda ahayd waqtigii saxda ahaa aynu la beegsanayno guul sida loo gaadhay runtii way adag tahay ta kale khilaafka iyo isku dhaca oo soo jiitama waxaan xasuustay markaan akhriyay tan odayro Soomaaliland oo kelmadda ila meerayso yaaba jiray waxa jirtay sheekay Soomaali waxa caan ah diin godgal godgoraygal goray godgal goddiingal okay kelmadda waa isdul taagaynaa maanta oo godkan horta yaale ilaan marka khilaaf yimaado waa in dadkii loo gar qaadaa soo diinku naturally wuxuu ku dhalaa god intuu labada lugoodee dambe hog ku qodo ayuu dhalihiisa ku aasa ka bacdi temperature-ka dhulka kulaylka uumibaxa dhulka ayaa ababiya dhalaha diinka gorayadu ilmeheeda arooriday dhigtaayo awoodigu ku bannaan baan ku ogeyn gorayo marka yaa khaldan marka dacwadda yaa hor keena ka wax dulmiya ee gafka geysta ayaa inta badan dacwadda ku horeeya ilaa uu og yahay wax la weydiin doona waa inuu ka sii hordegay wuxuu yidhi diin baa god iga cali moogaala gabaygan cali mooga geedi wuxuu yidhi diin baa god iga qaaday buu goray ku baanaaye gadhcadaadi bay weyday iyo guurtii hawlgale ee godka maalintuu qoday cid baan gorayba weydiin horta intaan gardaba la gelin war goormaad god qodan jirtay oo diin ku haysata nacam keena khaldan haddaynaan qabanin guusha caqabadaha inaga hortaagan bay ka mid tahay waan isfahanaan filaya ta kale bulshada qaybaheeda kala duwan maqaal yar waxaan akhriyay Afrika nin la yiri maxay u horumari weyday oo I don't know waxay yiraahdeen Mugabe quotes Afrika maxay u horumari weyday baa la yiri waxa yiri ninka Afrikaanki mantuu maal leeyahay uu muruq leeyahay uu maskax leeyahay dalal kale u taga hantiilaheedu wuxuu tagaa buu yiri dibadda aqoon-yahankeedu wuxuu tagaa meel kale marka uu maalkii iyo muruqii iyo maskaxdii dhamaysto dhintuu yiraahdaa dalkaygii hooyaha laygu aaso waa qabri suu horumari waa qabri suu horumari inta aad xoog leedahay ee awood leedahay ee aqoon aad leedahay ayuu dadkaaga iyo diintaada iyo afkaaguba ay ku baahan yihiin ee maalinta aad maaragtay ta kale dadkeena dibadda wax ku soo barta intooda badan oo habaarka igu dhacay bullshit Afrikaano igula soo noqda ee aan tala keenin amba aqli soo kordhinin amba hooyadu ariga ka ooman yahay aan xal u wadin inta joogta oo aan isu roonayn maamulka xilka haya oo aan go'aamadii saxda ahaa amba maaragtay awoodeedii iyo kartideedii aan lahayn iyada lafteedu waa gaababka kamida degma la isku laayay practically waxyaabahan arka
degmada laba reer baa isku laayay gudoomiyihii baa lagu eedeeyay reerkiina la safatay qiimeyntii markaan u yeedhnay baa qiimeyntii la galay baa la yidhi reerkiina aad raacday gudoomiyihii soo yidhi hadda ayaan raaci lahaa khaladku ninkaasi jawaabtu bixiyay waa sax because reality on the ground dhulka ka dhacay buu kuu sheegay laakiin qofka maamulka ah baa loo baahan yahay inuu ka sii digtoonaado oo inuu qofkani ummadda dhexdhexaad u yahay uu labada islaynaya isagu ka mas'uul yahay marka horeba looma sheegin nabigeena maxamed aha calayhi salaatu wasalaam baxun lama odhane waxa la yidhi iqra bismi rabbika alladhi khalaq qofku xilka iyo waajibaadka ta loo dirayo in la isweydiiyaa muhiim mushaharku waa imisa howlfulintu inta in leeg bay leegtahay haddaad ka bilowdo guul gaari maysid ta kale ummadda soomaaliyeed caqabada ku ah waxa weeye dhaga adayg ismaqal la'aan aayadda qur-aankeed waxay ahayd ina alinsaana lirabbihi lakanuud ibni aadanku dhaga adayg inuu yahay ilaahay baa inoo sheegay isagoo laba qof ayaa la yidhi ibni aadanka war geedka un ha cunina wax kasta waa idiin fasax geedkii bay cuneen soo ma etoobiya maanta 120 milyan ah khalad intee leeg baad markaa ka filanaysa nacam inaad wanaag iska wada filato dadku iska wada fiicnaado aduun baa ku daali ma wada fiicnaanaya dadku naturally dhaga adaygu waa wax jira wuxuu carays ciise Soomaaliya dhagale ay dhagaxatii ka adagay taan meel dheer dhowrinay walaalkeed dhiigiis iyo dhexdeeda u dhiiranay this is xaqiiqo cad wey qofku markuu kula joogo waa qof fiican waa wax wanaagsan markaynu sidan u wada hadlayno halkan marka laga bilaabo laga baxo automatically qofku wuxuu noqonayaa qofkii kale ka duwan odayaayim waxay dhahdeen jifadii baan nahay oo saan ku adeer bakoorada weyn maxaa idinka qariyo jifada waa inta yare oo hooseysay bakoorada qashinka taabata halka gudaafada la maxaad inoo geysin baan ku bakooradu meenadi dhamaystir ku qurux badnayn wadartaynu ku qurux badannahay kelida kuma qurux badn marka we have to think inaynu taa ku baraarugsanaa ta kale waad garanaysiin gabaygii timacade allaha u naxariistee dul iyo hoosba waan ugu dhagay waa dhagaxeed dadkan la hadlayaa baan lahayn duxiyo iimaan bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday dihashanaysa hal maalin war isdillay oo isgaraacnay ninna ma tago waan wada joognaa war kullay wada joog haday inoo tahay inagoo isu niyadsan inaan wada joognaa walaalayaal miina ka wanaagsanay nacam option ya maxaa yidhi tu kasta furan ta kale dhaga adayga iyo isdilka iyo maaragtay markaynu inagu isu naxariisan weynay buu yidhi wuxuu yidhi qaasim allah u naxariistee waa waxa abaarna natiijada ka soo baxday isdilkeenii dhaawacii maxaa la yidhi walaala xintamay wayna xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan natiijada ka soo baxday haddaba nacaybkaynu ku dhaqanay maxay tahay kow wuxuu yidhi waa waxa abaar nagu salliday soof mareebta socda ceelka waa waxa biyuhu uga socdaaleen biyihii ceelku hoos bay u dudeen samadii daruur laguma oga seerma weydada wuxuu yidhi samadii baa noo cadhootay oo dhulkii baa noo cadhooday oo annagoo gacan ku dhiglayaala isku soo hadlay labadii daaroodba waan ku khasaarsanahay buu yidhi ilaa labada daaroodba khasaaraha nagaga dhigin ta kale ku soo gabagabaynayaa waxa weeye maadaama waqtigu in badan la soo qaatay hawldiid hawl nacayb Soomaalida hore waxay oran jirtay xagla laaban xoolo kuma yimaadaan generationka imika joogay xataa thank you waa 8 xaraf saddex buu qoraa TKS I'm telling you the truth وعلى لما هلا وذا وحن عدو كهوشون واحد الدنيا هول يران لقو هلا يمجرتو وحي دودان الله هون حريسته سمعت هذا نكير رادية إيه سبنا قاعد سفرت يبقول يلق يسودي يجور أنت بواسعد سمعت هذا نكير رادية
ee sabanagaajooda safrad iyo boqol iyo lug iyo suudi iyo guure saldha adag waxay ka gasho iyo sirin cidhiidhiyoodba marun buu ilaah siinayaa uu midigta saara ha yeeshee sansaan bay rabtaa saas markay tahay waa inaad samirkeedii iyo dulqaadkeedii iyo maalkii iyo muruqii iyo maskaxday kaaga baahnayd guusha aad rabto inaad gaadho aad u hurta haddii kale guul ma raadinaysid it's a dream waad riyoonaysaa riyaad ku jirtaa ta kale timacda waxa uu yidhi midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada marka aanad lahayn looma lulamaanka weliga ee magaabada hashaadaa ka roon maydhanaan kale ninka intanoo fooq leh aniga maalinna xabad bariisa yima iibinin intaad leedahay hashaada yar ridaada yar cawsu dhigo oo caana ka maal taadaa ku huran nolosha sidaad u rabto haddaad u weydo waa ku qasban tahay sidaanad jeclin inaad ku noolaato marka waxaa iga dardaarana inaynu inagu isu niyad samaano danteennana ka wada shaqaysano maal iyo muruq iyo xasilooni guushaydu waxay ku jirtaa guushiinuna waxay ku jirtaa aniga ee haddaynu isdillo waxaa la yidhi walaalkaa unbaa kaa dhimay oo kugu dhimay markaynu wada nahay weligeen guul gaadhi mayno kollay saacadihii baa sidaas u yaraaday intaasaan doonaya inaan ku koobo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu